السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa 1 Agosto waxa weeyaan 2021 maanta maamulka Puntland baa wuxuu sameysanayaa u dabaaldegaya xilligu maamulka sameystay 1 Agosto 1998 gadaal haddaan uga noqono taariikhda Soomaaliya waxay qaadatay xorriyadda waxay qaadatay 1960kii sagaalkii sano u horreeyay waxay ahayd dimuqraadi bay ahayd Soomaaliya dowladda dimuqraadiga ugu dambeysay waxaa inqilaabay muxuu haytadiito waa la inqilaabay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaakana waxaa lagu dilay laascaano waxaana qabsaday xukunkii militariga maaragtay qabsaday 21 Oktoobar 1969kii kaasoo ah xukun keligii taliye ah uu shuuci noqday shuuci u bedelay dimuqraadigii waxyaabo uu sameeyay way jiraan sida af Soomaaliga qoridiisa iyo dadka in wax la baro waxbarasho bilaash la siiyo hay'adaha dowladda la soo dhiso ciidanka la xoojiyo laakiin keligii talinimadii baa waxay dhibaato badan keentay oo qofkii fikrad xoogaa ka duwan madaxweynaha ama maaragtay inta maamulka haysay markaa kuwa maamulka hayo xataa madaxda ah la xirxiro xabsi la geliyo dadkii la xirxiray waxaa ka mid ahaa generaaladii Cabdullaahi Yuusuf iyo Caydiid oo 6 sano xiraa kabacdi waxa la soo daayay 75tii hay'adaha sharciga loo dhiibay 2 sano kabacdi 77dii waxaa loo diray dagaalkii inay hogaamiyaan Itoobiya iyo Soomaaliya sida Cabdullaahi Yuusuf sheegay kaartada dagaalku aad bay u xumeeyay siyaad barre soo dejiyay sababtoo wuxuu yiri Itoobiya dhan soo qabsada markii la arkay ciidanka ay arkeen inaysan Itoobiya qabsan karin sida Cabdullaahi Yuusuf sheegay uu siyaad barre u yiri taas socon maysay kaarta kale ku hayaa tan aynu qaadano dhulkeena aan qabsano inagoo aan leenahay Soomaali galbeed siyaad barre uu ka diiday wuxuu yiri arrinkii hore dagaalka Itoobiya waxa uu soo hiiliyay Ruush iyo Kuuba iyo maxaan ku iraaday tadito Yamanba waxay noqotay in ciidamadii Soomaaliya la jabiyo siyaad barrana lagula taliyo markaa dowladda maaragtay Soomaaliya saaxiib la xilal la aha ay kula taliyaan wuxuu ka bax dagaalkan ka soo bax hadii kala khatar waxa ugu jira Soomaaliya dhan la qabsado halkaasna uu yiri ciidamadii gadaal soo baxa ciidamadii waxay go'aansadeen inay siyaad barre ay ku qaadaan inqilaab ciidamada Soomaaliya dhan waa la socdeen arrinkaas in siyaad barre laftigiisa inqilaab ku qaadaan sababtay ku tahay waxay ku xumaayeen si dagaalka qaabka daran la geliyay inqilaabka wuu fashilmay Cabdullaahi Yuusuf wuu la socday inqilaabkaas Cabdullaahi Yuusuf markii inqilaab sameeyay la qabtay waxay u galeen Kenya magangalyo weydiisteen jamhad bay dabceen halka ka asaasaan Kenya waa ka diiday Itoobiya weydiisteen hadda Itoobiya maxay ku diidaysaa wadana dagaal la lahayd hadirtan dagaalku ugu soo qaaday lagu leeyahay waa la jabinaynaa hadda waxay tiri waa danba ugu jira Mengistu wuxuu yiri soo dhawaada 4 sano ka bacdi waxa iyadna asaastay jamhad asaastay Soomaalida waqooyi labadaas jamhad islama shaqeyn sheekadu markii hore waxay ahayd si Soomaalinimo in maaragtay dowladdan siyaad barre meesha looga saaro laakiin labadooda islama aysan shaqeynin haddana waxay noqdeen wax qabiil ku dhisan jamhadii reer Puntland waa iska baaba'day ugu dambeyntii maadaama siyaad barre cafis u furay oo waxa uu sameeyay soo daayay dad xabsi ku jira marka ugu dambeyntii waa baaba'day waxayna ku baaba'day oo kaleeto markii Itoobiya waxay sheegatay dhulka Balanballe iyo Galdogob bay sheegteen in ay ugu leeyihiin meelahaas markaas ay joogeen jamhadda maaragtay Puntland xisbigii ururkii maaragtay jamhadii ka tirsanayd ay lahayd baa joogay markaas waxa qaadan waayay Cabdullaahi Yuusuf arrintaas qaadan waayay in dhul Soomaaliya leedahay la yiraahdo Itoobiya sheegatay tirada anaga leh wuxuu yiri raadiyo ay lahaayeen oo kulis dhigi jiray waxay ka sheegeen inaysan Balanballe iyo Galdogob ay leedahay dhul Soomaaliyeed yihiin kabacdina Mengistu wuxuu ku riday xabsi wuxuu geliyay saas markay tahay haddana markii jamhad ay ka asaastay waqooyiga Soomaaliya Hargeysa waxaa siyaad barre uu ku qaaday dagaal ciidankii u diray iyagana awalna ciidanka Soomaaliya waxaa loo diray markay Puntland tan dhulka la yiraahdo ay jamhad sameysteen waxaa loo diray in la baabi'iyo dhulkooda la gubo ragooda la laayo naagahoodana la qabsado sidoo kale waxa lagu sameeyay iyo si ka daran waxa lagu sameeyay waqooyiga Soomaaliya Hargeysa dhulka dadka degan
ugu dambeyntii baaba iyo dowladdii siyaad barre waxay koonfurtay usoo jeesatay iyaduna la baabi'iyey ilaa iyo 91kii oo maaragtay iyaduna maaragtay ay burburtaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas ku ekaysiin.